اسبوعا waxaa soo baxay telephone iPhone 16 iPhone 16 ka waa la yaqaanaa oo waxa la leeyahay waa kii hore oo kale wax laga bedelay ma jiro balse midka ugu hadal heynta badan caalamka waa telefonkan hadda hoosta ka daawanaysaan oo la yiraahdo Huawei Mate XT. haddaba adiga commentiga inuu soo qor midkaad isleedahay waa wanaagsan yahay laakiin midkan ay soo saartay Huawei shirkadda la yiraahdo waa mid cajaa'ib ah oo lala yaaban yahay caalamka oo dhan la hadal hayo. iibsanin iPhone 16 kan hadda soo baxayo wax macna leh oo lagu soo kordhiyo run ahaantii ma jiro haddaad aaminaynin research ka samay wad arkaysaa the only thing ay ku kala duwan yihiin waa inay gees uga sameeyeen button-kaasi oo sawirka ama ku soo dhaweynaya ama ku maaragtay hagaajinaya maahe in wax kale oo kale lagu soo kordhiyo malaha haddaad maqashaan Apple Intelligent-ga ma wato ee tartiib baa loogu soo darayaa laga bilaabo December sanadkan. haddaba haddii aad telefoon fiican haysato joog sanadka dambe waxaa la qiyaasayaa in ay iPhone 3 sano oo la soo dhaafay ay ka shaqeynayaan telefoon cusub oo la dhihi doono ama loogu magac dari doono iPhone Air. taasi waa arki doonaa sanadka dambe bar hadda sanadkan maanta aad rabtid inaad telefoon iibsato telefoonka maanta la hadal hayo waa Huawei telefoonka soo saartay Mate XT ga loo yaqaano kaas oo isku laabmay 3 jeer oona folded phone sidoo kale screen ku noqonayo sidoo kale waxyaabo tiro badan oo ma aragtay wanaagsan lagu arkay waana qiimihiisana waa qaali waa $2,800 haddii aad rabtid inaad soo iibsatid adiga maxay kula tahay haddii aad leedahay telefoonkaas baa fiican ama ana haysto kan commentiga inoogu soo dir wax walba oo aad adiga aad sheegayso soo dhawaada.